laga bilaabo hadda 48 saacadood ee soo socda waxaanu xayirnay ama la joojiyay dhammaan isu socodka gaadiidka waxa maanta biidnillaahi tacaala degaya madaxda qaranka oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin ilaah baa mahadlay subxaanahu wa tacaala وصحافيتكن ama shirkan jalad waxa ugu heliya xildhibaan Cabdiqaadir Cabdi Warsame Digaale iyo duqa magaalada Abdulxiin Cali waan ka mahad celinaya bahda saxaafadda doorkiina iyo sida aad mar walba aad uga shaqeynaysaan guddiga qabanqaabada waxaan halkan aan rabaa inaan fariin u marino shacabweynaha waqooyi bari gaar ahaan kuwa caasimadda waxa maanta biidnillaahi tacaala degaya madaxda qaranka oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay u tahay shacabka waqooyi bari guul waxaan sidoo kale aan bogaadinayaa diyaar garowga iyo soo dhaweynta shacabweynaha waqooyi bari gaar ahaan kuwa caasimaddu ay ugu diyaar garoobeen imaanshaha rasmiga ah ee madaxda qaranka waxaan shacabka halkan aan fariin u marinaynaa inay si weyn uga qayb qaataan soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah astaantii qaranka iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka oo saacadaha nagu soo wajahan ka soo degi doona magaalada caasimadda ah ee Laascaanood haddaba si soo dhaweyntaasi u qurux badnaato si habsami leh ay u socoto soo dhaweyntaasi waxaanu la wadaagaynaa shacabkayaga qodobo la xiriira dhanka amniga laga bilaabo hadda 48 saacadood ee soo socda waxaanu xayirnay ama la joojiyay dhammaan isu socodka gaadiidka magaalada dhexdeeda isu gudbaya waxa kaloo la joojiyay oo hakan rasmi ah lagu sameeyay dhammaan gaadiidka magaalada ka baxaya soo nagelaya laga bilaabo hadda ma jirayso gaadiid magaalada soo galaya iyo gaadiid ka baxaya toon ilaa inta laga gaariyay 48 saacadood ee soo socda sidoo kale waxa la hakiyay oo la joojiyay dhammaan gaadiidka shacabka ee magaalada 48 saacadood soo socda waxa reeban bajaajlaydu inay shaqeyso wax bajaaja 48 saacadood soo socda shaqeynaya guud ahaanba ma jirto waxaan rabaad shacabka aan u sheegayaa inay doorkooda qaataan inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga inay la shaqeeyaan oo ay kaashadaan dhammaan hay'adaha amniga ee ka howlgelaya caasimada ee isugu jira kuwa federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka waqooyi bari aad iyo aad baad u mahadsantihiin